waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. TV static. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولالك هذا مارت برهان أكون قاعد مارت كنا با ورت ما إن شاء الله مارت جناك يكسودو أديكم مع سن سبسكرايب خو لايك مارت إن شاء الله مارت خو إن شاء الله هذا ما صرت مارتي ما دام مع سبسكرايب تعال بعبس ورت ما محيطها إن شاء الله وأنت ورتكو معلومة عن السوشيال ميديا مارتي ما فيسبوك هذا أول ما السوشيال ميديا وحياة مارتي وحياة بدن وكمية مارتي فرانك مارتي بيكي مالا بيكي هذيك بعضي وحوا سيدا بحال بيكي بابورك ولا ما بيكادن وحال مارتي ها اكيد ماتا كل هذيك فاهم كرتين marka بيكي oo maalmahan social media waxyaalo maartay waxa ka jira ilahay ninkii maartay oo dhaay maartay qaar waxyaalo badan oo sheegay qofka bin aadigan maartay uu qaldami karaa waxna uu sameey karaa waxna uu dhahay karaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay qofka uu maartay ilaahay qof walba uu cafiya qofka uu toob keeno maartay aduu qof dambi walba uu sameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu cafiya horta insha Allah maartay horta intaan maartay horta si fiican u soo gudbin aan falaqeenin horta insha Allah asaga horta muxuu leeyahay asaga muxuu leeyahay ka bacdi amaar aan falaqeeyna hayay tooliga marka insha Allah horta fiinina wuxuu leeyahay asaga dak bismillah kulanti wanaagsan oo waxaan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinayaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa uu qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baad jilaayay Maxamed soo dhaw TV Universal marka horta waa ujeedan horta BK iyo maartay wariyaheena halka fadhi marka uu wareysanaya marka waxa la weydiinaya maartay waxa ku kalifay iyo hadalka waxa ka keenay iyo maxay ahayd iyo hayay dooliga ma iska caadi marka asagana waa fiirinayna marka wuxuu asaga uu leeyahay عبد الحفيظ aad baad u mahadsan tahay Allah ku casmo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa horta waa ka qaaday BK maadaama salaanta waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado تعسيدها هرت واندريا مرلباتك سحر وحوشك سحر وكدريه طبنا فقشدي مو من باكو قبته أنا هذا الوناكسن والتعسيه بان دري تبدأ ندد بك فايديستو حق كلك كروي waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waan ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa horta ko meesha jooji horta BK anaga ma ka qaadnay maadaama ay ku tiraan waa sidoo kale waa saad dhaxan horta qof waa qof Soomaali ah qof Muslim ah qof walaalkeen ah maxay qofka bini aadamka uu qaldi karaa wax uu qalad uu gali karaa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala hatta uu afay marka insha Allah waxaasna waa idin sheegi doona sawahay waxa la sitay soo kale noo wada marka Muqdisho xal baan siinaya mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay hameen horena waad sheegtay xalana waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inay ka tacsiinaysan ka xuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxoodimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicin bulshaduna isaga hor imaan Cabdi Xaafid aad baad u mahadsantahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu BK ahaan waa iskaga kay murgeen laakiin waa kala saaraya
marka ani waxaan fahmay waa nin fanaan waaye siyaasadan ku jira soo marka qofka duu fanaan aad tahay ummadda Soomaaliyeed shacabka ayaa fanaan u tahay hada siyaasada inuu wax kala goon ah marka hadalkiisa waxa meesha ugu jeednaa inuu leeyahay maanta waan kala saari doonaa marka kale inoo wada insha Allah anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada gariina sitee waan iska saarayaa fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda show ay ugu horeeyeen waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto horta meesha city bontiga city waa horta dadka maaragtay ku dhawaato Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta dad badan walaalihiin wax sameeyay oo gargaar badan maaragtay oo maanta ay wadaan oo la sii doono insha Allah horta dhankaas kale ani ahaan kuma taageersani maxaa yeelay hadaad sadaqada naftirkeeda waa inay ahaataa wax xalaal ah maaragtay oo ummadaas qofkaas loo qoodinayo waa inay meel xalaal ka soo gashaa soo kale ani waa ra'yi aday naftirka ra'yiga laga yaabaa inaad ku raacsanen soo asagu leeyahay ku taageeraya oo shoogi ma lacag hadda waa siina ma inoo wada marka anigu Soomaali waan jeclahay ma nacbi si xun wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay inta u dadaalaysa daryeelkiisa iyo naftiyo sidoo u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliga ugu daashay ficil inta isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabiyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo YouTuber sida wax xaganayad helaysaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaariyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iiga duceeya oo habaarkii duco iigu bedela inta la sii noolaanayaaba waa muddo anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasto Soomaaliyan laba ballan waxaan ku qaaday inaan labadayda adin ku tago okay wow waa horta meesha city waa point aad u fiican muxuu yeelo qofku wuxuu leeyahay habaar haduu wax habaar yani waa hadalkiisu waxaan ka dhimnayna inaad tahay qofka bini aadamka inuu qalad galay oo leeyahay maaragtay haligaal ahaado haliga cafiyo maxaa yeelay qof walba wuu gafaa ma fahmin macnihiisa qof walba qalad uu kan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa cibaadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahaari wa ana aghfiru dhunuba jamii'an fastaghfiruni aghfir lakum adoominkii habeen imaan dambi aad gashin ee dambi dhaaf ana idin dambi dhaafay weydiis Ilaahay weydiis dambi dhaaf Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka كيف مرك أديقة أو خلط قالوا مركا ما دام إلهي سيساس الله سبحانه وتعالى مركا ولكن نبيكي أنا هان فكرتي إذا وحن قوا ما دام أولي وكتب بكين أم وهلي رالي قليو وما الصومال إذا إسكعفيان أنا هان ورتكو ولكن هو مرنا مارتي وما الصومال اللي متى أنا هان ورتو عاهي مركا كل إذا كان ساس هذا الله مركا نوض محوليه هي دولي uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya malaayiinta fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdi Xaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnaan oo kabarday naga duubayo nin qaali ah barasaab iyo Cabdi Waasac oo niman qaaliyo ah oo showgii muhiimka ugu horeeyay rag lahaa oo la fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn ciidamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade markii hore ciidamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kasto Soomaali joogto inaan idinku imaado وانا ندين كرالي قلنيا I love مقدشة حالنا واسيني واو حالي رتد يرأد مالين ببحثها ما هنقلي ألفت يا لليا ما تغير مركا وجد ولكن وحوليه هي بلان بقى يا يعني هذا اللي سمعته إنه وجد هذا اللي سمعته إنه مركا جد أوفيرسيد وحكمت إن أنا معرتي أو قلط وقلي مرجع خيري ذاتك معرتي السوشيال ميديا استعماله أنا والله بالله إلهي سبحانه وتعالى ولا بيجي إنه مقرنا
ولا واحد كان ما قانو لأن قفك وحا كفيريا مركز وناق على الفيريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى معرتي مركز رنق وناق وأصحابك في رجري ومدى وناق وفي رجري ما فهمتي سو مركا أديك كيف سيدي بن آدم أوتها أنا هاي وقفك walaalka ku dhahay waxa waa qalday qalad baan kali marka waa ina aniga dhangan wanaaga aan fiirina oo aan dhahnaa bk miya walaal maartay adiga naftirka maartay aad u maasanta maxay yeelay qofka laga yaabo habeenkii dib qof markuu careysan yahay waxyaalo badan uu dhihi karaa oo aniga waxaan intii maartay isaas waay wax buu iska sheegi karaa soo marka nabi sallallahu alayhi wasallam maartay uu aanin maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay umadu ka doortay naxariis badan buu ahaa umada maartay iska cafin jiray ma fahanti nin baa jira saxaabi ahaa waliba oo habeen walbo markuu hurdo ayuu wuxuu sameeyay jiray dadka oo dhan uu cafin jiray umada uu iska cafin jiray markaas aanu saacsan wuxuu leeyahay fulaan ninkaasiti waa halo jano yiri saxaabi kamid ayaa wuxuu ku yiri yaa rasuulullah ninka muxuu sameeyaa marka saxaabigii ninkii uu booqday wuxuu dhahay inuu kula joogi karo cabaar wala joogay salaatu leel badan ma dugto shan salaad isku dugtaa sunan badan ma dugto عباديس عادي اسكوتا لكن وحو سما قلبي يسا سوحي دادك ما امدو هبينك مركو سوحي انو اسكا عافيا مركز صحابي يقول نو هذا ما حسن يسا انا واحد ما سمع لكن هبينك مركز امدو اسكا عافيا مركز ساسو كلا ان امدو ما عرفتي او قفك اسكا عافيا ناسو كلا ولا مركز لا maxaa yeelay mar walba aad ka fiirisa waa horta ha ku kalifin qabiilnimo iyo Soomaalnimo iyo waxaas aad isnin markuu xal sameeyo mar walba in aad naftirkaada maartay oo qof muslim ah tahay walaalka waa muslim oo Soomaali waaye qofka qalad uu galay ma fahanti soo marka that's why uu fiiri dhanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhankiisa inuu sallallahu alayhi wasallam ayagan waxa kaleeyeen ayadku cafin jiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baabna cafiibe oo xadiiska inuu sheegay waa dhamaantiin dambiyeed gashin iyo weydiis waa idin dambi dhaafa كيف مرك أنا يوقف بنادم كوسمان مرك غير مارت هذه السلامة يا مارتي وحنقل ذنب من الشيطان وحاسح من عند الله هذا ما استمرت وقتي نقالي شرط بنا أساس ذهبتين فضلا مارتي الشرك وقوادي وما صن مر لما عندهم حتى وحكى عصنا هذا نفس الشرك ليس بدو ما صنتاي سبسكرايب اسكيلون وولا هذا مارتي برهان ما فهمت هذا ما جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته